isafgarashada Ethiopia iyo Masar waxa uu salka ku hayaa maareynta iyo sidii loo maari lahaa biyaha wabiga Niilka wabiga ugu dheer adduunka waxaana ka faa'iideystaa 11 dal ilaa iyo 1960kii dalka Masar ayaa si gaar ah uga faa'iideysan jiray kadib markay dhistateen biyo xidheenka sare ee Aswan Dam waana biyo xidheenka adduunka ugu weyn waxaana lagu tiriyay inuu yahay halbowlaha nolosha dalka Masar. wabiga Niil laba madax ayuu leeyahay, waa Niilka cad ama White Niilka oo ishiisu ay tahay harada Victoria ee dalka Tanzania ku taala, iyo Niilka Blue ama Blue Nile oo gobolada Oromia Ethiopia ka soo bilaama. qaybta Ethiopia waxa Niilka Blue loogu bixiyay waa dhoobada madow ee qaniga ku ah ee biyuhu wadaan. dhoobadaas madow ayay Masar aad uga faa'iideysataa markay timaado dhinaca beeraha. xooga korontada ayaa iyaduna ataa faa'iido kale oo weyn oo ay ka faa'iideysan dadka reer Masar. taariikhdu markay ahayd 2011 ayuu Meles Zenawi waa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia bilaabay dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib-u-curashada Ethiopia ee lagu magac daray Grand Ethiopian Renaissance Dam. dhamaadka biyo xidheenku waxa uu soo kordhin doonaa 6,000 oo megawatt oo xooga oo koronto oo kobcin doona 50% baahida waddanka Ethiopia. xilligu Meles bilaabay dhismaha xaalka siyaasadeed sidan maanta uu ka duwanaa. Masar dhibaato siyaasadeed ayaa ka taagnayd. 2 Meles oo xagga siyaasadda adduunka isaguna khibrad u lahaa iyo Masar iyo adduunka kalebana ku qanciyay in xooga korontada ee laga heli doono biyo xidheenka ay ka wada faa'iideysan doonaan si wada jira Ethiopia, Sudan, Masar iyo dalalka kale Mediterranean ka saaran ee Yurub. taas ayaana keentay in arrimo badan laga gaabsado sida in aanay Ethiopia samayn daraasad la yiraahdo qiimeynta waxyeelada deegaanka Environmental Impact Assessment. Ethiopia oo dhismaha biyo xidheenka ka dhigtay arrin siyaasadeed oo lagu hiyiciyo shacabka Ethiopia iska wuxuu qabso. labadaas arrimoodba waxay horseedeen in la tixgelin arrimo la xiriira cimilada iyo deegaanka isbedelaya climate change iyo xirfadaha injineernimada oo ku aadan qatarta ka iman karta fatahaada oo aan iyadana la soo jeedin. waxaa inta badan saxaafadu ka hadlaan siyaasadda ku weegaaran biyo xidheenka oo hadda ku sii durkaysa xasarad siyaasadeed oo geeska Afrika oo dhan ka aloosan. xasaradaasi ayaa ku soo aadaysa xilli adag oo Ethiopia siyaasadeedu qasan tahay, gaar ahaan culayska kaga imanaya dhinaca Oromada ayaa weeqay awoodii ra'iisul wasaare Abiy uu kula gorgortami lahaa waddanka Masar. xilliga Morsi Masar ayaa kala daadsanayd. hadda si Al-Sisiga Masar waxaad moodaa inuu gacanta si buuxda ugu dhigay reer Masar isagoo matalaya amaba se maalaya khatarta ku timid ama kaga iman karta dhinaca dhimista biyaha Niilka iyo waxay Masar ku tilmaamtay cantuugada weyn ee biyaha Niilka Ethiopia. kalamaanka Masar iyo Ethiopia u dhaxeeya ayaad moodaa in dhaqdhaqaaqa dhinaca xulafaysiga dalalka geeska Afrika ku yaala ku soo biireen. Masar waxay si buuxda u raacsan tahay Sudan, Ethiopiana waxa raacsan Soomaaliya. waxaa dhinaca dhexdhexaadnimada isaguna doorkiisa ka ciyaaraya madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias. waxa iyana shaxda ku soo biirtay Somaliland oo aad waliba moodo hadda in si firfircoon ugu jirto dhinaca diblomaasiyadda. Isaiaska Eritrea inkastoo la heshiiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia 2018 haddana waxa la oran karaa waa heshiis afka baarkiisa.